dadka deegaanada oo la leeyahay ha kiceen waa qabiil la kiciyey aragtayda qabiil la kiciyeyna waxa uu leeyahay waa garanaynaa laakiin dagaaladaas aad goobjooga u ahayd dadkii ama ciidamadii la hubeeyey waxay ahaayeen dadka deegaanka oo qayb ka noqonay maxaa diiday marka sidaas oo kale in dadka deegaanka dawladdu ay adeegsato war intii fidinaysa ee warfaafinta maanta xog ururin ku fogan farqi baa u dhaxeeya dadku aanay fahmaynin bal midkii ugu fiican farta aan ugu fiiqo waa barnaamijka Afiyaad iyo Fagaaraha wataas maxaakim baa la sameeyay maxaakimtii waa kuwaas shabaab ay dhaleen shabaab ay dhaleen wataas Soomaaliya ka dagaalada nin walba Soomaaliya dilka ugu xukuman yahay wixii aan ayaga ahayn dilbu ugu xukuman yahay meeshu doonaba hateeyo problemkaas marka uu tira badan yahay laakiin Soomaaliya alla leedahay dalka hadda waxa ka socda dagaalka dhanaa Al-Shabaab waxay ku fiicnaan la dagaalkaas in dadka deegaanada oo la leeyahay ha kiceen waa qabiil la kiciyey aragtayda qabiil la kiciyeyna waxa uu leeyahay waa garanaynaa adaabeen dhaweyd waxaan arkayay gudoomiyihii gobolka Hiiraan oo odayaal inta shiriyay yiri tuuga jidka isbaarada dhiganaya Ali Jeyti aniga tuuga ma dhuuman kare gaana xog badne iyo ogolaada inaan tuugo ku soo dhuumaan qarinin oo san jifan noqon isbaaran baa ka kaxaynay oo ka cayrino meesha maxabo xabsi ugu jiri dalkaan xabsi ugu jiri waa u dhimanay waa u dhidino waa u dhaawacanay mid magacayagiisa taa inuu isbaaran dhigto islaamkii ku gooyo halka maxaa kaaga muuqda wixii markay qabiiliyad yihiin qabiilku wuxuu ku fiicnaa inuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed garab siiyo taakulayn raashimada biyaha caanaha daawada kii dhaawama la soo arrimahaas inuu qabto laakiin la yiraahdo qabiil oo macawis low ka kaco qoryahaaga qaado qoreys kale keen karaan laakiin waxa la leeyahay dadka darasaa waxay leeyihiin dawladdu in muddo ah ayay ku jirtay dagaalka oo kaligeed dawladdu waa shacabka waa ma qaban karto sababtu ama xalku wuxuu yahay ay leeyihiin sida ay ku la fagorayaan ama ku darasayaan in dadka deegaanka degan la nool ama la degan oo Al-Shabaab yaqaana halkay seexdaan guryahooda inay ka adkaa karaan dooda oranaysa Axmed sidee kula muuqataa doodaas waxay ku fiicnaan nimankan macawisleyda ah oo la hubeynayo safka dagaal galaya in la qarameeyo marka hore ayagoo qaramaysan oo numbers leh oo magac leh oo la yaqaan kii wax bixiya xuduudiisa uu leeyahay qofkii wax bixiya xad laga gudayo kii wanaag sameeya abaalmarintiisa leeyahay oo ciidamo qaran ah inay dagaalkii galaan laakiin hadda wixii waa qabiilna number ma leh magac buu leeyahay mooyaane number meel ku dhamaada ma leh waa basal fiiq adugu xabad qolof bay ku dhiibaysaa qabiil waa nooca waxay ku fiicnaayeen wixii looga baahan yahay oo ciidan ahaan ciidanka qaranka uga maarmi waayo inuu ayaga u adeegsado ayagii la qarameeyay oo magac leh oo number leh oo la yaqaan waad garatay hadda ka bacdi waxa laga yaabaa shaabka laftiisa inuu hadda macawisle iska soo dhigo oo ka aqoon ninkan kale way asagoo qabiil samaysto ha qabiilkana ka mid yahay haye marka dagaalku waxa moodaa degdegna inuu jiray xuduud aan xilli la rabay horay gadaal in loo dhigana horay loo soo dhigay barnaamijkan macawisleyda la leeyahay in qabiilku isagiyo waayo halkan hadda aan joogno meel shabaab qabsada dhuusamareeb oo laga kiciyo dhuusamareeb baa ugu horreysay Soomaaliya kuu sheegay
dagaal rasmi ah la galay ahlu sunna wal jamaa la gashay oo gobolladan dhexe waxaa ka mid ahaa rag ka yimid oo ahlu sunna ah oo anagu waxaan aqaanay ka yimid gobolka la yiraahdo meesha la yiraahdo gobolka Sool Timaweyn nimanka Timaweyn la dhihi jiray baa ka mid ahaa rag magaaladan wax ka saaray ilaa iyo maxaas iyo meesha la yiraahdo wabxo ka dirirayay gaalkacyo iyo waxay ka yimaadeen hilimo ayagoo ahlu sunna ah magaca ahlu sunna sheeganaya haddana qabiil isu yimid ahaayeen u fiirso si fiican dhuusamareeb iyo waxa xoreeyay iyo gurceel iyo ayaga ahaayeen ahlu sunnadii haba hogaamiyo sheekh maxamed allah naxariistay sheekh maxamed xeefow iyo sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha ahaadeen laakiin cabdwaaq xiraale cadaado baxdo meesha la yiraahdo magaceeda dhuusamareeb gaalkacyo ilaahay baa igu ogo waxaan aqaanaa niman ka yimid meesha la magaceeda circad galaadi iyo walwaal iyo ka yimid oo ahlu sunna ah niman ka yimid lagu raqsay dhuusamareeb iyo gurceel iyo wabxa iyo meesha la yiraahdo maxaas ka qayb galay dagaalkeedii oo ku leeday maamul jireen ahaayeen markaa dib haba u soo gaabiyeen haba soo urureen dib ha u soo noqdeen oo ha soo gaabto mar dambe oo ahlu sunnadu qaybina ay dawladdu ku biirtay qaybina ay ahlu sunnimadeedii ku hartay markay labadaa noqdeen bay soo yara gaabatay laakiin awoodii hore culimadii Soomaaliyeed oo ahlu sunna wal jamaa ahaayeen galgaduud baa lagala diriray dhuusamareeb bay xoreeyeen 13 dagaal oo dhuusamareeb ka dhacdaan goob joog ah anigu 13 kaba laakiin dagaaladaas aad goob joog u ahayd dadkii ama ciidamadii la hubeeyay waxay ahaayeen dadka deegaanka oo qayb ka noqonay maxaa diiday marka sidaas oo kale in dadka deegaanka dawladdu ay adeegsato oo dawladdu kuma lahayn ciidan dawladeed kuma jirin wuxuu ha ahaadeen ahlu sunno oo magac qabiilna haddana ku leh laakiin ahlu sunnada laftirkeeda soo maahay waa ku sheegayaaba macnaha dawlad ma jirin maamul dawladeed ma jirin dawladdu markay timid waa tan la wareegtay ciidamadii bay qaar la wareegtay maamulkii bay qaar ku dartay siiba xukuumaddii ka horeysay farmaajo oo xasan sheekh maxamuud kan oo saacid hogaaminayay saacid farax garaad ra'iisul wasaarihi baa dhuusamareeb tan yimid saacid dhuusamareeb ku dhashay u fiirso deegaankan mas'uuliyiinta Soomaaliya soo maray 3 meelood markii loo qaybiyo 2 iyo bar waa reer galgaduudeed ku soo xiji labadii hadda ugu dambeysay labaduba waa reer galmudug farmaajo iyo roble hay farmaajo iyo xasan cali khayre labaduba waa galmudug ku soo xiji xasan sheekh maxamuud iyo ninka la yiraahdo magaciisa saacid farax garaad oo ugu horeeyay ra'iisul wasaare uu doorto waa galmudug cabdiwali ku xiji cabdiwali madaxdiir رئيس الوزراء ساعد كذا بيه وقلمذك وأثناءها عمر عبد الرشيد بقى كل حاجة وقلمذك على خير وكل شيء أسيء أبي سبا مسؤولين في قرن كصومالية صومرتي عبد الله يوسف وقلمذك عبد القاسم وقلمذك ورئيس المرتبات وكأقول يا أبي مقالة كل سنة عبد القاسم صلاح حسن كان كي أبيها يسنتري سنة بوي جنيه رحمة الله سيو عبد الولي على قاس كان رفتي يوم مدحوينها هي رئيس الوزراء هي النقضي وقلب يوسيما ورينا نص مرهبات نص مرهب بكسوة كورية دكسي هو دكسي لحد دكسي سنة وقبح شغالي قرنكو كم من نقضي شغال معلمين في شغال قرنكو دكسيال سكول الحل وصل درين ومعلمين كانوا نقضوا marka qarankan wixii soo hogaaminay intiisa badan waa reer galmudug bay ahaayeen way garatay
haddana xamse baan ugu soo saayaday oo ka yimid koonfurka baalkii Jubbaland laakiin madaxweynuhu waa galmudugtii waa wacaysle waa reer ceeldheer haba yiraahdo waxaan ku dhashay meesha la yiraahdo dowlad bardiya aageeda ha sheegto laakiin waa asalku waa degmada ceeldheer waa gubernashadore dadka ceeldheer marka waayaan ka soo joognay waxaas oo dhan marka dowlad ugu xoog leh wali ma arko Soomaali midayn karta laakiin sifaalihii dowladnimo ima muuqdo wata hadba maamul goboleed inta gooni u istaagay leeyahay waxaan rabaa hadaan la yeelin